ardayda dugsiga ibnu taymiyah ee dhameeyey hingaada iyo qur-aanka ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan kadib markii xaflad ballaaran loogu qabtay masjidka ibnu taymiya islamic center ee magaalada colombos ohio. goobta xafladdu ay ka dhicisay ayaa si weyn loo soo qurxiyey, waxaana goobta yaalay abaalmarino kala duwan oo ardayda loogu talagalay. qaar ka mid ah ardayda ayaa goobta qur-aan akhris iyo nashiidooyin ku soo bandhigay. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. xafladda waxaa ku sugnaa culimo, madaxda dugsiga iyo macadka, imaamka masjidka, macallimiin, ardayda iyo waalidiintooda. maanta insha Allah taala waxaan fadhinaa waa graduationka ilmaheena hingaada iyo quraanka. waxaan haysanaa oo maanta jooga ardayda graduationka 81 arday oo 60 ka mid ah 60 of them from hingaad ay macnaha waxa weeyaan dhameeyeen oo ka imaadeen oo quraanka u gudbeen. qaarkoodna way bilaabeen oo way ku jiraan oo xafladda qabashadeeda ka hor bay quraanka bilaabeen, qaarna hadda ay cusub yihiin oo bilaabaya. 60 ka mid ah marka waa hingaada weeyaan. 60gaas waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho. wiilasha ayaa badan oo waxa weeyaan 39 waa boys way. gabdhaha waxa weeyaan 23. graduation qaybta waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa hingaada. quraanka waxaan haysanaa 20 students. 12 ka mid ah waxa weeyaan waa gabdhaha way. gabdhaha dhameeyay quraanka oo maanta fadhiya 12 gabdhood weeye. sidoo kale wiilasha 8 wiil ayaa iyagana quraanka noo dhameysay alxamdulillah. ilmahaas 81 ah weeye waxaan maanta idinku yeernay oo nagala soo qayb gasheen inaan dhiiri gelino, u ducayno, waxa weeyaan farxadda aan la qaybsano insha Allah taala. quruxdaas iyo wanaagaas aad arkaysaan waxay ku timid iskaashi, inaan iskaashano hadaan nahay waalidka, hadaan nahay waxa weeye idaarada iyo maamulka masjidka, hadaan nahay macallimiinta, hadaan nahay waxa weeye culimada, intaba inaynu iskaashano iyo ardada. taas aynu ku gaari karnaa guusha aynu arkayno. maalin ka dambaysa dugsigu ama iskuulka waxa weeye masjidka uu waxa weeye tadawuraya. maalinba talaab ayaynu waxa weeye qaadaynaa. maraaxil fara badan baynu soo marnay, culimo kala duwan baa waxa weeye soo beddelay. maantana meeshii ugu fiicneed baan maraynaa, berrina inaan kasii fiicnaana ayaan rajaynaynaa insha Allah taala. waxaasoo dhanna wuxuu ku yimid iskaashiga aan iskaashanayno. masaajidkan ibnu taymiya wuxuu ka mid yahay masaajidda waxa weeye ugu wax soo saarka badan, ardada ugu fara badan North America waxa weeye ka soo baxaan oo ay ka qalan jabiyaan mar walba. nabiga sallallahu alayhi xadiidkiisa uu lahaa khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. waxaa idinku khayr badan dadka qur'aanka ma aragtay barta oo iyaga baranaya, daryeelaya iyo oo barayana dadka. khayrka isaga ah qofka wuu la soconayaa noloshiisa oo dhan, maxaa yeelay waxa uu ku howlan yahay wixii ugu khayrka badnaa oo ah kalaamu rabbina jalla jalaaluhu. hadalka ilaahay ayuu qofka ku howlan yahay oo uu baranayaa ama uu ku caawinayaa qof baranaya. khayrka marka qofka waxa weeye daris buu leeyahay noloshiisa iyo markuu dhinto kadib ilaa iyo destinationka ugu dambeeyo ah jannada Allah subhanahu wa ta'ala uu ka galay wala soconaya. waxaan maadayska runtii culimada, maamulka, macallimiinta masjidka Allah barakeeyo oo mar walba u taagan sidii community-gooda waxay awoodaan oo wanaaga oo diintoodii ah u bari lahaayeen. kadib waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta runtii oo bacda Allah ilaahay uu sabab uga dhigay awlaadda ilaahay uu siiyey, ilaahayna uu fahamsiiyey in runtii ay ku dadaalaan oo masaajidka alla keenaan oo madrasadii la daba joogaan oo quraanka ay baraan oo diinta ay baraan. khaasatan waxaan u sii mahadcelinayaa runtii hooyooyinka oo runtii aad iyo aad u dadaala, Allah barakeeyo. intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale ardada yar iyo weynba, qaarkood aan dareemayo maanta inay quraanka xataa 2 jeer dhameeyeen. waalidiinta sharafta leh magacooda anaga maartay waalidiintii kamid ah oo ku hadlay halkan
ilaahay khayr ha siiyo waxaa annaga noogu dadaal badan aabbayaalka bannaankay ku maqan yihiin laakiin waxaa noogu dadaal badan waa hooyooyinka waxaa laga yaabaa inaan wax badan aan ka warqabin aabbayaasha kulley waxaa kula dardaarmi lahaa in aan maaragtay aan ilmaha aad aan u caawinno insha allahu tacaala ilmahaaga hadday aamusan yihiin ma aha in ay wax la aamusan yihiin waxay rabaan in laga soo saaro oo lala hadlo lala sheekaysto saaxiib lala noqdo mararka qaarkood ilmaheena waxaa dhacayso ayagoo dhibaato iskuulkii ama dugsigii ama wax ka qabo inayna kuu sheegan karin waalidkiina uu leeyahay maxaad qur-aanka ooga soo bixi laadahay maxaa casharka ooga soo bixi laadahay focuska qur-aanka aan saarno way fiican tahay diinta aan saarno ilmaheennana inaan la sheekaysano oon wax u sheegno oon la farangarayno weliba macallimiinteenna iyo dadkeena culimadiinka ee waxbartay inay ilmaha kale yaqaanaan cunuga rabo inuu wax la weydiiyo iyo cunuga kale ay kala bartaan markaskan iyo masaajidkan iyo madarasadiisa iyo aqoonta ka socota runtii waxay u caddahay sida qoraxda oo kale waxaan ognahay masaajidkaanu inuu soo tarbiyeeyey oo soo saaray dad maantay wiilal iyo gabdho leh oo qaar dhakhaatiir yihiin oo qaar naars yihiin oo qaar injineero yihiin oo bulshada community-ga iyo ma garanaysaa waddankan aan joogno meelo fiican ka galay oo qaar culimo yihiin intaasna waxaa lagu soo gaaray waa maamulka masaajidka macallimiinta iyo waalidiinta oo garbaha haysta ugu dambeyntii ardaydii qalinjibisa ayaa shahaado iyo baaskiilo la guddoonsiiyey. Look at you guys with your bicycles. You guys are cool. Nawal Ahmed, Liban Muhammad. Dugsiga iyo macadka Ibn Taymiyyah Islamic Center ee magaalada tan ee Columbus, Ohio waxaa sanad walba ka aflaxa arday aad u fara badan oo bartay Qur'aanka Kariimka iyo diinta Islaamka. شعية TV ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين